الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأربعة شيكسين حبلها وسلامة ساكة فرحة البيت إن سور تاجو عيرتان oo aan xusuusanayo sanado badan ka hor oo halkan oo kale aan taagnaan jiray aniga iyo wasiirku oo isna iga sii horreeyay Faysal Cali Waraabi iskulaas ahaayeen markii la furay iskuulkan aan malaynayaa ardaydii la bilowdeen oo ahaa ama iga horreeyay aad iyo aad farxad igu tahay inaan la sugnado saaka dhalinyarooy saaka waxaad leedihiin madaxweyne badan hortaagan wasiirka badan hortaagan kalo goormaa gaari doontaan dawadad waaweyn aniga shalay un bay ila tahay markii sidan oo kalena loo lahaa berita dalka idinka idin jooga dalka idinka leh dalkii la ilaashada berita ayuun bay noqon doontaa idinka oo leh wixii noolaada shalay bay beri unbaa anagoo yaryar halkan lagu khudbadayn jiray iskuulkan waxaa ka baxay raggaan xusuustay hargeysa joogay markee daada ee aqoon-yahanka ah dhakhtarka la yidhaahdo cali axmed maxamuud ee dhakhtarka lafaha ah ee jaamicaddan hargeysa ka dhiga oo jarmalka wax ku soo bartay oo dhakhtar gaara imikale oo ninka lafaha qala ah iyo tobannaan kale oo maanta brofesora ah oo siyaasiyiin ah oo baacmitarka waaweyna oo dadka talada laga dhagaystaa ayaa halkan soo baran kara sana fadhidaan waa halka nolosha laga bilaabo iskuulkani taariikhaan wuxuu ka mid yahay mashruucyadii markii ingiriisku dalka uu doonayey inuu ka tago ee xorriyaddu bilaabatay dhaqdhaqaaqeedu dhowrkii iskuulaha hargeysa lagu daray buu ka mid ahaa markaa sheekh bashiir oo berigaa fiisha loola jiro oo quraa jiray hargeysa wax elementariya oo iskuul bilow ah mar baa looda bilaabay 4 iskuul qurac dheer iyo macallin imamka sheekh daawud baa la yidhaahdaa macallin daawud baa imika la yidhaahdaa biyo dhacay iyo riis ayaa mar looda bilaabay dhowr iyo kontonkii waa la furay kalaasyadii ugu horreysay 750 baa la furay daadii bilowday maasha allah xuseen baa taagan uladii ugu horreysay ee iskuullada gashay waa taariikh kooban berita ayay kala taasi soo maraysaa maanta inama yar baa tihiin hablo yar baa tihiin berita mas-uuliyadda dalka qaadi doontaa berita aabbiyo hooyo noqonaysaan berita noqonaysaan brofesoro berita noqonaysaan macallimiin berita noqonaysaan ambaasadaro berita noqonaysaan maalqabeedno waaweyn oo shirkadaha waaweyn maamula mar haddii mustaqbalka aa leedihiin xaq waxaa u leedihiin in laydin siiyo tacliim wanaagsan iyo nolol wanaagsan waajib bay ku tahay waalidka iyo dawladda iyo tujaarta iyo dhakhaatiirtaba inay idinkala daryeelaan waayo mustaqbalka dalku waa dadka daar la dhiso iyo laamiyada iyo qurux la beero waxa ugu weyn ee la maalgelinayaa waa mustaqbalka iyo da'yarta iyo dadka waxaanu doonaynaa da'diidani inaad ka duwanaataan da'da maanta nool da'dayadan inaad ka fiicnaataan baanu doonaynaa dhinac walba inaad caafimaad ka wanaagsan heshaankaanu hellay inaad tacliim ka wanaagsan heshaankaanu hellay inaad dhaqaale ka wanaagsan heshaankaanu hellay in dawlad ka wanaagsan ah heshaan dawladahaanu soo marray in magaaladiinu ka wanaagsanaataan siday maanta tahay ayaynu doonaynaa oonu ku hamoonaynaa idinkana waxaanu doonaynaa inaad maskaxdaasoo kala qaataan waxaa la yidhaahdaa oo imika hirgashay iskuullada dawladdu way ka gaabinayaan kuwa gaarka loo leeyahay waa inagu ceeb qaran ahaan iyo ummad ahaan in dawladdu dhakhtarkay haysay maamulayso iyo iskuulka ay maamulaysaa la yidhaahda waxaa ka fiican mid ashkhaas ama qof maamulaya waa hawl noo taala haddaan dawladda nahay iyo dadweynahaba inaynu isugu tagno in meesha dadku isugu imanayo xooggiisu iskuullada dawladda waxaa isugu imaada dadka xooggiisa waxaa isugu imaada shacbi weynaha dal walba iyo adduunkaba inta danta yar baa ka badan inta hodanka ah caalamka o dhan inta lacagta haysta waa wax yar dadweynuhu markaa waa inuu noqdaa kuwa ubadkooda iyo mustaqbalkooda la dhisaayo si uu dalkao dhan u fiicnaado ee aanay koox yar u dhismin taasaynu doonayna inaynu samayno qaran ahaan alayaal waanu ula dhibaatada qabtaan iskuulladu baahida ay qabaan waynu isugu tegaynaa si aynu kor u qaadno
in dadkeena weyn ee iskuullada dowladda ku jira ay kula soo qaadmaan waynu ku dadaalgelaynaa waa isugu tegaynaa macallimiintii wasaaradda waa mahadnaqaynaa macallimiintu waa naftood horeeyaal iyaga iyo ciidamadu mushaaharo ma qaataan xaaskooda ma eegaan nin waliba isagoo carruurtiisu maanta gurigiisu bahaya oo laga yaaba carruurtii inuu soo kala laho oo kuwa kale wax baro waa naftood horeeyaal qarankooda dhisaaya dadkaasoo kale aynu u baahannahay uma baahna in lacag yaryarayo nin qabiil yaryarayo nin masab dowlaya aad iyo aad waa mahadsan